gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland iyo xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa warbaahinta uga waramay ujeedada shir uu ka qayb galay dalka Imaaraadka Carabta kaasoo uu sheegay in laga hadlayay maalgashiga caalamiga waxaanu xusay inuu kulamo la qaatay mas'uuliyiin ka tirsan wadamada galbeedka Afrika oo shirkaasi ka soo qayb galay saaka waxaan ka soo noqday wadanka isu taga Imaaraadka Carabta oo aan kaga qayb galay aniga wafdi kala balaaranay shir ku saabsan maalgashiga oo loo qabtay dalalka galbeedka Afrika shirkaas oo ilaa 8 wadan iyo madaxweynayaashoodii iyo madax kale iyo wasiirro iyo dad kale oo farsamo yaqaano badan ka soo qayb galeen waxa ka soo qayb galay dadka maalgashiga sameeya ama ha noqdaan dalal ama shirkadaha ha noqdaan ama baanan ha noqdaan wuxuu ahaa forum aad u weyn oo la isugu yimi forumkaas intii uu socday gudihiisu iyo intii shirku dhamaaday kadib waxaanu la kulanay mas'uuliyiin kala gedisan oo dalalka ka socday iyo qaar maalgashadayaasha ka socdayba oo aanu Somaliland uga xog warramnay xaaladeeda dad badan ku dhiirinay inay maalgashi ku sameeyaan Somaliland dalalka dhinaca siyaasadda waan kala hadalnay intii ugu badnayd ee suurtagalka ahayd qadiyada Somaliland iyo go'aansataageeda iyo xiriir wanaagsan mid shacbi iyo mid dawladeed iyo mid baarlamaan baynanu yeelano waxaas leeyahay ujeedadii aan u tagnay halkaas way suurta gashay waanu saas ku soo dhamaaday Khalid Xabsi Kaltan TV Hargeysa.